xukun sana Sayid Cali Macalin Daawud ayaa markii saddexaad oo xiriir lagu xukumay dil toogasho ah oo qisaasta marxuum Madluul Cabdicasiis Maxamed Allah u naxariistay taasoo ay xaaskiisa xukun sanaha ayaa lagu helay inuu nolosha ku gubay marwadiisii oo ay ka wada shaqeynayeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. maxkamadda sare ee dalka ayaa laashay rafcaan uu ka soo qaatay xukunadii ay hore ugu kala rideen maxkamadaha rafcaanka iyo darajada koobaad ee gobolka Banaadir taasoo ahayd in loo qisaaso marxuum Madluul Cabdicasiis Maxamed Allah u naxariistay. maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka. eedeysanaha oo baxsadka cadaaladda ayaa laga soo qabtay gobolka Mudug 6 bishii Febraayo ee 2024 markaasoo ay maalin ka hor dhaawac ka soo gaaray dabka u geeriyootay marxuum Madluul Cabdicasiis Maxamed. kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo qaatay in ka badan 8 bilood ayaa ugu dambeyn waxa maanta soo gabagabaysay maxkamadda sare ee dalka kulkii ay yiday ama raacday go'aankii ay horay uga soo saareen eedeysanahan oo ahaa in xukun qisaas lagu fuliyo maadaama lagu helay inuu nolosha ku gubay xaaskiisii Luul Cabdicasiis Maxamed Rabbi ha u raxmadee. fadhigii ugu dambeeyay ee kiiskan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay maxkamadda sare ee dalka. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah oo qisaastii marxuum Madluul Cabdicasiis Maxamed kaasoo lagu riday eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud. xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn. xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareenada difaaca ee sumadeedu tahay 136 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15 bisha 5 2024. maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka. xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024. wabillahi tawfiiq. maxkamaddu way xidhantay. In vitro fertilization IVF waa adeeg ilmo beeris ah oo aan weligeed laga hirgelin waddankeena Soomaaliya. waxa markii ugu horeysay keentay xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho. bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududeynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah. isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo.